waa qaybta afaraad qisooyinka nebiyada. Waxay qaybta hore inoo maraysay Qaabiil oo ka hinaasay qurbaankii laga aqbalay walaalkii Haabiil. Qaabiil oo dilay Haabiil. Shaydaan ayaa si weyn u waswaasiyay Qaabiil, wuxuuna maskaxdiisa ku riday inuu dilo walaalkiisa. Haabiil oo shaqadiisa u socda ayaa Qaabiil oo dhagax weyn wata soo daba kacay. Markii uu soo dhowaaday ayuu ku dhuftay, halkaas ayuuna ku dhintay Haabiil. Shaydaan ayaa qosol la dhacay sidii uu ugu guulaystay qorshihiisana la dhoola cadeeyay. Nebi Aadam calayhi salaam aad ayuu uga murugooday arrinkaas uu ku kacay Qaabiil. Tuki 10 siinaya Qaabiil. Kadib markii uu Qaabiil u dilay walaalkii Haabiil, wuxuu in muddo ah dul taagnaa meydkiisa. Wuxuu garan waayay sida uu ka yeeli doono. Kadib dhabarkiisa ayuu iska saartay oo uu ku xambaaray. Isagoo xaaladaasi ku sugan, Qaabiil wuxuu arkay 2 tuke oo isdilaya. Mid baa dhintay oo dhulka ku dhacay. Tukihii wax dilay baa bilaabay inuu god qodo. Kolkii uu qodayna wuxuu ku riday tukihii uu isaga sababsaday. Qaabiil ayaa isagiina bilaabay inuu god qodo oo uu ku aasa Haabiil. Kadibna ciid uu dusha kaga daboolo. Isagoo ka qoomamaynaya buu wuxuu yidhi Qaabiil, ma waxaan ka caajisay waxa uu tukahan sameeyay? Nebi Aadam calayhi salaam wuxuu sii noolaaday muddo dheer, awlaad badanna way u dhasheen. Isagana wuxuu barayay shareecada iyo diinta Alle, wuxuuna uga digayay shirkiga, shirqoolka iyo dhagarta shaydaanka. Geeridii Nebi Aadam calayhi salaam. Nebi Aadam oo da'diisa sii badatay baa isagoo maalin xanuunsanaya malaa'igta u timid. Kolkaas ayay ruuxda ama nafta ka qaadeen oo way dhaqeen, carfiyeen, kafaniyeen. Kadib inta ay ku tukadeen ayay xabaasha ku aaseen. Kadib waxay dhashiisii ku yiraahdeen, ilma Aadam waatan sunnadiinii aad mari lahaydeen. Inta badan waxaa la isku khilaafaa halka uu ku aasan yahay Nebi Aadam. Waxaa inta badan la sheegaa inuu ku aasan yahay buurtii uu ku soo degay oo ku taala dalka Hindiya. Ilaahay baase og halka ay ku aasan yihiin Nebi Aadam calayhi salaam iyo hooyo Xaawo. Maxaynu ka baran karnaa qisadan? 1. Nebi Aadam waa aabbaha basharka oo idil. 2. Shaydaanku waa cadowga insaanka. 3. Macsida ayaa sabab u ah carrada Alle. 4. Insaanka waxaa lagu magacaabay insaan sababtoo ah waxbuu iloobaa. 5. Waalidiinta oo la adeeca waxay sabab u tahay raalli ahaanshaha Alle. 6. Nebiyada oo idil waxay la yimaadeen islaam. 7. Insaanka waxaa loo abuuray cibaado. 8. Shaydaanku wuxuu ku dadaalaa inuu xumaan lugaha kuu geliyo. 9. Alle wuxuu jecel yahay qofka mu'minka ah ee isaga dartii wax ula baxa. 10. Qofkii ugu horreeyay ee dil bilaaba wuxuu ahaa Qaabiil. 11. Qofkii ugu horreeyay ee arlada lagu dilay wuxuu ahaa Haabiil. Qisadii Nebi Aadanna halka ayay noogu soo idlaatay. Waxa inoo balana qisooyinka nebiyada kale insha Allah. Ramadaan mubaarak. Muuqaalkan la wadaag walaalaha kale si ay uga faa'iidaystaan oo inoo sheer gareeya.